والله يشيك باي والله يشيك باي waxa muuqanaysa nin istisiriyay bay cawalaawad gaar oo madaxweynaha iyo systemkiisu dadka dagaalada beelaha horjeclo runtii ugu muujiyay madaxweynaha beesha horjeclo laba way ka filaysa mid saddexaad oo la soo baxay laakiin kama filay kursiga isaartay madaxweynaha waxay horjeclo ka filaysay inuu abaal gudo mid kale way ka filaysay inuu ka abaarka dhacdo way ka filaysay laakiin mid saddexaad kama filay cadaawad kama filay beeraha horjeclo deegaanka inuu ka soo jeedo oo ku shiray salaadiinteedii ay ku abtirsadeen inoo hayay hoggaanka guddideedii sida hore u sheegay ilaa 300 nin oo maanta runtii nigarboodkii deegaanada horjeclo ahaa ayaa magaalada Ceelaf ku shiray go'aanay soo saareen go'aanada runtii dad baa dhayalsaday siyaasadda iyagoo dhinac ka eegaya ugu horeeyo madaxda xisbiga kulmiye madaxweynaha iyo guddoomiyaashooda oo ku sheegay koofiyada bacliya iyo dad aan waxba go'aamin karin way ka soo waadeen oo aflagaadadaas ugu bay joogeen madaxweynuhu waa kii diyaaradda dubiyo burcaha jabaad yiri waa mar xidhayna haddana wuxuu kaga celiyay magaalada wajaale iyo gabirig hadda yalsanina waa dhab muuse hadduu soo noqdo wuu xidhayaa salaadiinteena boqor cismaan oo maxamuud ustaad maxamuud hureed mirees daasiciid yuusuf iyo dhammaan salaadiinta wada taqaanaan guddoomiye madax balbaldi oo guddoomiyaha guddida horjeclo ha qariibsanina laba markaa mid idin taaganta ama inaad fartiina ku xidhaan ama inaynu fulino go'aanadii ay salaadiintu ku gaadheen magaalada Caynaba haddii aad salaadiinta ay raacdo dad ka mid ah beelaha ugu ballaaran Somaliland oo adduunyada meel walba sida loo nooleeyay waxay leedahay veto power wixii ay diidaan veto power ku joojiyaan wixii ay qaataan veto power ku socodsiiyay noqon doona ama dad lagu halqabsado maamahneeba oo la yiraahdo ilaahu balakayga kii habar jecel barigi meel kaga dhawaaqay ka dhig ee beelooy ku xidhnaada wariye baylo dad miisaan leh runtii oo aad u shaqeeyay mahuraan ururka la yiraahdo oo intii walaalaha bilaabmay oo tiradiisu ilaa 250 marayso oo hawlo waaweyn walaalaha ka geystay oo laluhu dhinacyo kala duwan ayaa laga walaalayaa runtii xisbiyadu way dadkeenu yaqaanaan adduunka waxaa jira intaas oo runtii qaybood oo xisbiyada lagu hoos jira oo xambaara ololaha doorashooyinka noocan oo kale ah marka mahuraan isagoo runtii eegaya waqtiga kooban ee uu jiray isagoo eegaya hawsha taala waxa uu go'aansaday in uu suxur saaro campaign oo deegaanada runtii ay ka soo jeedo ay ku taxalluqayeen go'aanadii salaadiinteena guddideena xildhibaanada ganacsatada iyo nigarboodkii beeraha horjeclo ay ku qabteen magaalada Ceelaf weyn hawlo waaweyn u fuliyay fagaaro weyn buu ka furay magaalada Burco oo la yiraahdo fagaaraha isbahaysiga oo kulamo waaweyn runtii lagu qabto joogto ah waxa uu runtii qabtay shirarkooda waaweyn kastoo qaarkood la caqaladiyay oo fariinta uu xambaarsanaa oo jirkii daalo ee aad warbaahinta ka daawateen oo ka mid ahaa waxaanu shalay tagnay oo aan deeq ballaaran gaarsiinay ciidamada jiida hore iyo ciidamada deegaanka ay walaalaha nahay ee ku yimi gurmadka iyo runtii isbarbartaaga gaarsiinay deeq weyn iyadoo saxaafadii ku jirtaa oo ay runtii uu gaarsiiyey mahuraan gaarsiiyey mahuraan runtii waxa uu ka qayb qaatay iyadana kulamo waaweyn oo hawlgalla ah oo dhowr to dhowr ah oo magaalada Burco laga sameeyey oo dadka lagu wacyigelinayay ujeedada waxaasoo dhan aan u qabanayay waxay ahayd deegaanka inuu ka soo jeedo oo ku shiray salaadiinteedii ay ku abtirsadeen inoo hayay hoggaanka guddideedii sida hore u sheegay ilaa 300 nin oo maanta runtii nigarboodkii deegaanada horjeclo ahaa ayaa magaalada Ceelaf ku shiray go'aanay soo saareen go'aanada runtii dad baa dhayalsaday siyaasadda iyagoo dhinac ka eegaya ugu horeeyo madaxda xisbiga kulmiye madaxweynaha iyo guddoomiyaashooda oo ku sheegay koofiyada bacliya iyo dad aan waxba go'aamin karin way ka soo waadeen oo aflagaadadaas ugu bay joogeen madaxweynuhu waa kii diyaaradda dubiyo burcaha jabaad yiri waa mar xidhayna haddana wuxuu kaga celiyay magaalada
wajaale iyo gebiri waxay markaa muhiimadeeda fariintani ay tahay in aynu laba mid qaadano in ay ama tahay xisbiga kulmiye madaxdiisa iyo madaxweynuhu ay ku noqoto iyagu waxay yidhaahdeen oo xaqiiqa waad raadinaysaan odayaashaasi waa koofiyad baclayaal siyaasiyiinta deegaankaasina dad saameyn leh ma aha ee maanta isbeddelka wadaa lacagtayada loo haysta codka deegaanka ama taasaa ku noqon doonta oo dabeetana farteena ayuu salaadiinteena ku xidhi doona hadda yeelsanina waa dhab muuse hadduu soo noqdo wuu xidhayaa salaadiinteena boqor cismaan oo maxamuud sudaan maxamuud guuleed mire sudaan siciid yuusuf iyo dhammaan salaadiinta wada taqaanaan gudoomiye madax balbaldi oo gudoomiyaha guddida habar jeclaa ha qariibsanina labay markaa mid idin taaganta ama inaad fartiina ku xidhaan ama inaynu fulino go'aanadii ay salaadiintu ku gaadheen magaalada Caynaba haddii aad salaadiinta ay raacdo dad ka mid ah beelaha ugu ballaaran Soomaaliland oo adduunyada meel walba sida loo leeyahay waxa leedahay veto power wixii ay diidaan veto power ku joojiya wixii ay qaataan veto power ku socodsiin noqon doona ama dad lagu hal qabsado maamaha reeba oo la yiraahdo ilaahu ballankeega kii habar jecel barigii meel kaga dhawaaqay ha ka dhigi ee beelooy ayay noqon doona ilaahay ka ma dhigo horta xaruntii gobolka Sool jigeerba ka furanta beel walaal idin sheegay xaruntii gobolka Sool ee ahayd inay Caynaba ka furaato jigeerba ka furanta ciidamadii mushahariga ahaa ee la ascaanood lacagtoodii hargeysa ayuu madaxweynuhu ku beelay kabkii waxbarashada oo kaliya 3 biloodkii $750,000 ayaa loo shubi jiray ascaanood war haddii ascaanood waa in Caynaba xaruntii gobolka laga dhigo oo dabkaas ay ascaanood eegato way soo jiidi lahayd xaasidnimada keentay in jigeer loola guuro ma taasoo cod ku daraysa qof fikiraya oo maray maayo istiidooyinka hoose oo dhan dhexdeeda iska daayay waxaad jeceshahay waxaad cunta iska daa future bay arrintu taagan tahay kabkii magaalada la ascaanood lacagta magaalada la ascaanood miisaaniyadda ugu jirtay marka ciidamo ilahay waxay lahayd waxbarasho 3 bilood oo sii daayo waxay lahayd caafimaad dhammaan wixii Soomaaliland maanta ka go'ayeen waxbay nagama gaadhaan waxay idin halkan lagu maamulo oo gobolkan ballaaran saraaro gobolada ugu baaxadda weyn ka mid ah looga faa'iideeyo saraar lafteeduna ay deegaanada kale uga faa'iideyso ma yidhi waxa muuqanaysa nin istiisiinay bay cawadaawad gaara oo madaxweynaha iyo systemkiisu dadka deegaanada beelaha marjaclo runtii uu muujiyay nin aad la yiraahdo odayaasha ama jabka ka mid ah kelmadiisa soo qaadanayaayo xadiis hay'ad wuxuu madaxweynaha beesha marjaclo lama way ka filaysay mid saddexaad oo la soo baxay laakiin kama filay madaxweynaha marjaclo way dhistay anigu wadani baan ahaa way naga baydhay talaadheed habar jeclayhay go'aan la gaaray bay kursigay saartay madaxweynaha waxay habar jecel ka filaysay inuu abaalgudo oo abaalgudku waa cadaalad samay ma aha in wax gaara siiyay qaraabakiil taa way ka filaysay mid kale way ka filaysay inuu ka abaarka dhacana way ka filaysay aan wixii ay cadaaladda deegaanada u lahaayeen aanay siin laakiin mid saddexaad kamay filayo cadaawad kamay filayo عداوة كبير فيلين سنادين تدي بعداودي أدوك كبير عين إسحاقنا كبير عين سومالنا كبير عين وحول الرجل كبير عين نين إسمع أو تدرس رد إلى الله عروض هذا الآن كبير عجها رسولي كبير دوليا بقول كي بيكون عال سيد أو وده كيسي وكم استعمل السلام كان عصتني ولا كيسي إما فرح بمركة المركب كيم ملايين دولار وصل العمر غاب بواي مطلع بيلا تجار الشركات كاستساسية وتعب مرحبا جوات المستقبل ممكن غير كيلو بيبين هذا الكرسي ولا تيري سودة تدقى كاس مهري والعلاوة تالك إنه عقدة مغنى وواحد الحويل المسبح كي ما هو واحد يدي سكي غير كسر شيئا ما وقعه تجاه كسر شيئا ما وقعه لكن الحويل المسبح علاوة تجارنا بلا أمر تعلم كذي وإلى الله يفتح كل قامة إذا قام ما هكافرتي سكر قامة عاوة أو إلا الله يهذا شيء ترى waxa wadawda murashaxa isbeddeldoonka ee xisbiga wadani oo ah murashaxa ururka siyaasadeedka weyn ka ah murashax oo ah iyo madaxweyne ku-xigeenkii Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici
عبد الرحمن عبد الله يسير ولي كيمود وشرعي أهم وسيب لحتوين بلتر wuxuu yiri ka dadka lagu aamini maayo maqayladhanka way ma garaysaa deedinka ninkii madaxtooyada kula jiray uu yiri war dadka lagu aamini maayo allahayka alle imika ka qabta maanta chance ay sataan rigaadu way afartan urideena inagana deegaanadeena wuxuu geystay way ognahay waa taacayna shaqaalihii kalabayna balka ka soo dhaqaaqay waa macallimiin wallahi bay roonki waa laga saaray ku xidhnaada wariye baylo